wiilkaagu markuu aroosaya sida ugu ororaydo ood ugu orodo ood u garab istaagto ayaa lagaa doonayaa gabadha aad dhashana inaad ugu ololaydo oo guurkeeda u garab istaagto oo ragga soo doonanaya aad soo dhowaydo oo aadan lacag ku xirin oo dhaqaale ku xirin ilaa wiilka markaad u aroosin oo aad garab istaagi kharashaad bixidaa waad ololaydaa cidda waad ku laalaabataa si wiilka uu gabadha u helo sidaa waxaa la doonayaa marka gabadha marka lagaa soo doonto inaad adduunyo ku xirin oo aadan dhaqaale ku xirin oo aadan gabadhaadii mustaqbalkeedii ku cayaarin qaaraa waxay gurga gabadha u burburinayaan mustaqbalkeeda ugu cayaaraan keli ah dhaqaale adduuniyo haddaan waxaas la isiinin haddaan sidaa la ii yeelin gabadha ma idin siinayo oo gabadha soo mustaqbal ma rabto mustaqbalkeeda maxaa loogu cayaarayaa haye wiilka waa loo ololaynayaa si gabadha u caaw u helo laakiin gabadha waxa weeye masaakiinta ah ee mustaqbalkeeda waxa weeye guurka ah ma loo ololeeyo waxaa laga yaabaa in la yidhaha ordaha habarta u taga bal ordaha habarta u taga haye oo gabadha mustaqbalkeeda la liido awlaaddu waxay marka kaa doonayaan cadaala weeye wuxuu rasuulka alla yidhi sala allahu alay wasalam xadiiskiisa waxa weye saxiixa ahaa xaadiidkii nucmaan weeyaane ittaqullaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka baqa awlaaddiina u cadaalad sameeya waxaa marka la doonayaa sida wiilka loogu ololaynayo oo mustaqbalka loola goobayo oo gabadha fiican loola xulayo ilaa waxaa wiilkaaga markuu guursanayo gabadha waad weydiin gabadha waa nuucee ma xijaaban tahay ma fiican tahay laakiin gabadha ma la fiirinayo gabadha waxaa la odhanayaa keliya lacag ma ii wadda adiga lacag ma ii waddaa haye war wiilka waxaad tidhi lacag kama aadan hadlin waxaad tidhi gabadha waasee ma naafici doontaa haye mise gabadha waxa weeye wiilku awlaadda dhalayo aday kugu soo noqonayaan qaaraa waxay ku xisaabtamayaan awlaadda wiilku dhalayo aday kugu abtirsanayaan marka bal iska fiiri bal awlaaddu meeshay ka imaanayaan inay cid fiican yihiin oo diin leh bal iska fiiri laakiin gabadha masaakiinta lama eego taasna waa waxa weeye waxyaabaha keenaya cadaalad darrada oo gabdhaha god ku ridaya mid surwaalkiisu googo'an yahay oo aadba is-orama doolli miyaa ka cunay oo madaxa balaayo kala fiiqay ah ayaa haddau lacag wato gabadha waa la siinayaa lacagay wataanoo aniga waxa weeye biilkaygu bisha waa toosan yahay oo unbaa la odhanayaa laakiin gabadhiisa markau waxa weeya wiilku adagu u keeno gabarh farro gududsatay oo dharkeedu si yahay waxau dhahayaa wiilkaygu tanna anfici maydo tan lacag kama dhiibi karno haye tan dhaqaale ma geli karno ilaan dhaqaale asaga ka baxaya markaas ma eegayo laakiin markau isagu dhaqaale qaadanaya gabadhiisa godoo ku ridayaa wuxuu rasuulka sala allahu alay wasalam yidhi xadiiskii tirmidi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuhu ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir haddau idin yimaad axad diin leh oo diinkiisa iyo dhaqankiisu idin raalli geliyo gabadha u guuriya haye mid marka aan diin lahayn ee dhaqaalo wata haddau kuu yimaado gabar sii laguma dhihin ee waxa weeye midka diinkiisu iyo dhaqankiisu idin cajab geliyo gabdhaha ha la siiyo oo gabdhaha lagu daro haddau dhaqaalo wadanin ou biilka heli karo ee uu diin leeyahay ee uu axad diinta ilaahay ku xidhan yahay gabadha siiso isagadan way imaan dhaqaalahana waa iska imaanayaa laakiin waxaa kuu muhiim ah inay gabadhaadu hesho nin diin leh oo aanan cirdigeeda ku cayaaraynin waana waxa keenaya gabdhaha in la soo furo odagu lacagba waxa weeye siisanayaa gabadhiisu lacag siisanayaa wiilkiisana waa ka eegayaa war waxyaabaha noocaasa waa waxa keenaya cadaalad darro weeye awlaaddu inay waxa weeye eex samaydo oo cunugaa kuu cadaalad samay kari waayo waa waxyaabaha keenaya bal gabadhaada in waxa weeye mar walba la soo furo oo gurga kugu soo laabato adaa sabab u ah maxaa yeelo biilka bisha aad qaadan ayaad u bad eegta keli ah halkaas bil dhaqaalaha aad qaadanayso oo waxa weeye bisha aan dhaafaynin ayaad gabadhaadii god ugu riday taasna waxa weeye waa iga dardaara weeye waana waxa noogu badan weeye gabadha marka la soo doonto in la yidhaha fadhigaan haddausan dhaqaaluhu intaas ahayn hadduusan aroosku intaas ahayn hadduu dahabku intaas ahayn gabadha ma la meherinayo gabadhii oo ninka rabta oo raalli ku ah oo ku qanacsan oo waxa weeye noloshiisu ay ninkiina ay tahay mid diinle ay tahay ayaa la oro intaadausan wadanin hadduusan reerka nuucaasa ka soo jeedin hadduusan kida ahayn markaasaa gabadhii oo ninkii rabta gurga waxay kula laaban caro iyo ciil ilaa ninkii gabadhu way rabtaa mana raaci karto waa laga hortaagan yahay sidaasoo ma dhacdo sidaasu way dhacdaa gabadhii oo ninkii rabta oo iyagu heshiis yihiin in waxa weeye odagii ou meel uga soo baxo ou yidhaahdo guurkan macquul ma ahan haddaan dhaqaal noocaasa la isiin hadda inta adeer la siin inta hadda eedda la siin haye gabadhii marka waxa weeye bac bay gashay
waxyaabaha marka noocaas ah waa waxyaabaha keenaya inuu mustaqbalku halaabo waxa marka la doonayo awlaadda noloshooda in la ilaaliyo oo guurka awlaadda waxa weeye sida gabadha wiilka loogu ololaynayo oo wiilka mustaqbal loola goobayo ayaa la doonayaa gabadhana in mustaqbalkeeda loo raadiyo war awlaadda waxay dhalayaan dhammaan waxa weeye waarda u tahay cid kastaa ka soo jeedaan wiilkuna anagu abtirsanaya gabadhnu cid kale geli waxyaabaha noocaasa ma wanaagsana